maseerka iyo waalida uu qofka bini'aadanka u geysan karo miyirkiisa ama maankiisa ama maskaxdiisa iyo in uu saameyn karo caafimaadkaaga wax badan ayay rabtaa mar kale inay ismahaan idin fahansiisaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale channelkeeni ahaa toosinta garaadka iyo barashada xikmadda oo ismahaan idintaa dihinaysay iyo halkii aad ugu barateen in ay idinla wadaagtaa sidii aan ku toosin lahayn garaadkeena kuna baran lahayn xikmadda. Xikmadda waa wax Ilaahay bixiyo, laakiin qofkii ku dadaalaa haddana gaari karaa. Masha Allah. Waxaa kaloo halkaan ka baranaysa sida garaadkaaga ama aqligaaga ku toosin lahayd ama ku kobcin lahayd. Maantana waxaa noogu soconayaa maseerka iyo waalidiisa. Maseerka sidee ayuu maseerka waali kugu ridi karaa? Mase tahay adiga qofka bini'aadanka ma garan karaa inuu maseersan yahay iyo in kale? Soomaali haddaan nahay masha Allah maseerka waxaan ka soo qaadnaa bis naag ninkii lala guursado bis inay maseersan tahay. Taas kama hadlayna anaga. Maseerkan aan maanta ka hadlayo oo aniga ku socdo ma aha maseerka nin iyo naag ka dhaxeeyo. Kaas waaba kan ugu fududba oo cad oo la cadeeyo laakiin kan la qariyo ee qarsoon ee wixii dhaqaaqaaba laga maseerayo oo cudur nagu noqonayo qofka bini'aadanka cudur ku noqonayo inuu ka maseero qof walaalkiisa ah, qof dariskiisa ah, qof wax qabsaday uu qof walbo jaan qaada ama meel maraabo uu ka maseerayo uu ku matalayo nafsadiisa. Caafimaadka qofka bini'aadanka ah ka maskax ahaan sidee ayay u saameynaysaa? Cashirkan aan ka hadlayo ma aha wax la dhayalsado ama wax yar oo fudud. Maxaa yeelay qof kasta kama hadli karo maseerka. Maxaa yeelay wadnihii iyo xikmaddii lagaga hadli lahaa dadka waa inuu qofka gaaraa. Qof kastana kama hadli karo. Qofkana waa inuu kow asiga ka soo xirowaa oo asiga ku jirin. Waxa adiga ku jirtid kama hadli kartid. Bini'aadanka waa saas. Marka waxyaabaha bini'aadanka aadka dhibaatada ku haya gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed maseer micno la'aan ah. Qof bini'aadan inuu qof kale isku matalaa, isku maqiiqaa, kula tartamaa ilmo, kula tartamaa guur, kula tartamaa hanti, kula tartamaa cilmi oo Ilaahay siiyo, kula tartamaa wax kasto, kula tartamaa muuqaal, kula tartamaa wax kasto amaba iska nacaaba. Ma fahantay? Waa maseerka noocaas ahna waa waali. Naag aan lagula qabin marka aad ka maseeraysid ama nin aan naag kula qabin aad ka maseeraysid ama qof aadan waxba kaa qaadan aad ka maseersan tahay. Subxaanallah, Allahumma najina. Maseerkaas waa waali waana ku waalanaysaa meelaha dadka waalan lagu xareeyaa haddaansan la geenin qofkaas maseerka dhaqanka dhigtay. Haddaa meelaha dadka waalan la geeninne ogow asaga oo waalan ayuu reerku dhex deganaa waalayaa oo ilmihiisu waalayaa oo ninkii naagtii u qabo waalayaa wuxuu waalayaa meel kasto. Marka maseerka aan ka hadlayo ma aha maseer hal mar in la fariista laga hadli kara. Ma aha mid saacad ku filan, ma aha mid ku filan 10 saacadood ama 100 ama million of saacadood. Maxaa yeelay qofka bini'aadanka shakhsiyadiisa qayb walba ayuu maseerka ka soo gali karaa. Mar walba aan maseerka ka xoroodidne oo aad dareentid kana dhimsid noloshaada inaad maseersan tahay oo ka xoroodine waad guuleysatay. Subxaanallah maseerka waa cudur qarsoon ummadana dila, dadkana dila. Waa kii maseerka waalida ah waa kii shaydaan oo Ilaahay marka uu amray malaa'igta oo amray u sujuud Aadam calayhi salaam uu diiday loogana soo dejiyay 7 samo. Subxaanallah, ama jannadii ay joogeenba Ilaah ayaa ku cilmi leh. Marka waxaan ku leeyahay maseerkaas shaydaan markuu dhulka la soo degayne dadka ayuu bini'aadanka ayuu taabtay. Markuu taabtayne qofka bini'aadanka ah oo maseer korkiisa ka maqan yahay way yartahay. maseerka wuu jiraa qirashada koowaad aan qiraneyno kadib ayaa iska nadiifin kartaa. cudur hadduu kugu dhaco oo cudurkaas kugu dhacay oo aadan garanaynin in aad qabtid ma dhici kartaa inaad dawadiisa raadsatid? Maya.
horta marka ugu horeysa qof kasta oo bini aadan waa in uu qirtaa in uu maseer jiro korkiisana ku jiro uuna maseersan yahay caafimaadkiisana saameyn karo. maseerka waalida ayaan u bixiyay waa waali aan harsi lahayn. ilmahaaga ayaa ilmo kale ku matalaysaa, waa la maseeraysaa. wax kasta ayaa ka maseeraysaa, wixii dhaqaaqaba waa ka maseeraysaa, qof kastaba isha. marka waxaad noqonaysaa shaydaan wada dhan oo buuxo oona dadka ilaysta. kan dadka ilaysta waa ku maseersan. maseerka ayaa dadka lagu ilaystaa. isha qofka dadka ilaystaane adduunyada ma harsado, maxaa yeelay maalin kasta qof ilaysatid calaamad korkaaga ku taala ayay noqonaysaa. berina marka ilaahay hortiisa istaagtid oo lagugu soo saarayo calaamadaas xasadka ahayd oo qof bini aadan ku ilaysatay. mida kale tani adduunyada intaa joogtina memory ama xasuus ayay korkaaga ku ahaanaysaa oo nabar kugu yaalo ayay noqonaysaa. mar walba qof xasidid ama ka maseertid ama gardaameysid ama dhibaato u mareegtid, korkaaga ayay ku sugnaanaysaa oo nabar uu ilaahay kugu aqoonsada ayay noqonaysaa. ilaa aad ka noqotid oo ka toobad keentid qofkiina iyo cafi dhahdid, amaba hadduu dhintayna u duceysid, sadaqo u bixisid, ilaahayna u noqotid addoomihiisa nabadgelisid, ayaa ka bogsoonaysaa. marka maseerkan waalida waa cudur. maseerka waalida waa jiro, maxaa yeelay korkaaga wuu kacsanaanayaa, waa xanaaqsanaanaysaa, waa wareeraysaa. maalintii intaasoo goor qof wax wanaaga markaa ka maqashid dhibsanaysaa. ma maqli kartid qof hebel ayaa meel gaaray, qof hebel magaciisaba ma maqli kartid, maadaama aad ka maseersantahay hebelaaye ama hebel magaciisa haddii lasoo qaado waa jiranaysaaba. waxaa dhici karta inaad shaqaysan weysid, inaad xanuunsatid, in madaxa lagaa qabto, in qoorta ku xanuunto, in wadnaha lagaa qabto, inaad sakaraadid, in waxa ku haayo oo dhanne ay ahayd kana ahaatay naftaadii iyo shaydaan oo kugu tuntay. marka walaalayaal qaali yaalo, qalbi uroonayaalo, waa ismahaan khaliif oo rabta wax badan maseerka waalida inaan ku socoro. maseerka waalida wuu badan yahay. waxaa ka maseeraysaa saaxiibadaada, waxaa ka maseeraysaa walaashaada iyo walaalkaaga, waxaa ka maseeraysaa ninkaaga, waxaa ka maseeraysaa dariskaaga, waxaa ka maseeraysaa qof kasta iyo wax walbo dhaqaaqa. maseerka waalida ahna bini aadanka waxa baabi'iyo ee xanuunada badankooda ku rido waaye. bini aadankana uma jeedno walaalayaal. wax kasta oo wanaagay oo aan ku hadlay waxay ka ahaatay ilaahay iyo malaa'igtiisa, wixii xunna waxay ka ahaatay nafteedii shaydaan. allahumma najeena ilaahay ayaan ka magan galay shaydaan. ilaahayna waxaan ka baryaa mar walbo aana weydiistaa adoomahaaga waa kuu nabadgeliye iga nabadgeli. adoomahaaga waa kuu nabadgeliye iga nabadgeli. ilaahay ayaa magantiisa ku jira, ilaahay ayaa magan galayaa. ilaahay aan jeclahay, dadkiisana waan jeclahay, waana cafiyey. ilaahu magantaada ayaan ku jiraa. shayaadiinul jinni wal ins adiga ayaa ka magan galay. alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulina sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxaabihi ajmaciin. sidaas ayaan isku ognahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.